kula warbaahineedkan ay qabteen qoyska reer Muruud Sheekh ayaa waxay raaligelin ka bixiyeen hadal hore uga soo yeedhay qoyskooda hoose ee reer Cabdi Muruud oo hore u sheegay in la dhameeyay maran dhul oo u dhaxeeyay qoyska reer Cashuur iyo reer Muruud Sheekh waxaana ay sheegeen hadallada hore uga soo yeedhay ay haayeen qalad ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay Mataan Cabdi Muruud iyo Cumar Cali Barkhadle iyo Caaqil Ibraahim Cabdi Muruud waxaana ay sheegeen hadalka qoyskooda ka soo yeedhay ee raaligelin ka bixinayaan kaasi oo warbaahinta ay mariyeen 30kii bishii tobnaad si qaldan aan wax u galnay taasoo dad ay kala tawdeen dhibaato inaan ka dhaxabuuray dembiye dacwadna keentay wadadii hore ee u dhaxaysay beeraha ilmo Muruud iyo beeraha jaarkooda ah waa taan joogno ee asalkii saxday tu qaldan baan joojay tiina waxaan ka qaadanay ka keenay inaan de go'aan ka qaadano maadaama marka hore aan hadalay imikana annagu aan wax saxno waxa way beerta ilmo Muruud iyo ina Cashuur waxa u dhaxaysa wadada oo asiyankiya tii originalkii weeyii anaguna tu kala joogsanay oo xagga xigtaa waqooyiga haddaba waxaan ka bixinaynaa apologies khalad ka dhacay dadkuna wixii ka dhaxeeyay iyaga u taala annagu beerama kala xadayni waxna ma kala sheegin ee wax qaldan u baan lagu riday wixii qaldan ma sheegnay imkana wixii saxday ma sheegaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigoo ah Mataan Cabdi Muruud waxaan halkan u nimid maanta u joognaa qalad dhacay qaladkaasoo aan saxayno dad walaalahayo ay qaladkaasoo ah inaanan halkan aan joogno annagu aanan dhulku lahayn haddaan nahay ilmo Cabdi Muruud oo ka cadaynayno wadadaasna ay dhaxmartuun beerta ilmo Muruud marka waxaan halka ka cadaynaynaa ay tahay taa qaladkii hore dhacay ee dadku nagu tumay walaalahay inaan ka saxno saasaanan ku goosanay inaan halkaan nimaadno wax dhaxalo halkaan kuma lihin iyo wax dhulana imika halkan aan joogno ee wadadan waa tu dhawaan la sameeyay laamiga oo dadku dhan baa garanay laakiin wadadii qadiimiga ahayd ee dadku yaqaaneen ee hay'abe waa halka imika aan joogno wadadaasna waa wadadii Muruud ka dhaxmaraysa saasaan ku cad salaamu calaykum dhinaca kalena Muuse Xuseen Faarax iyo Samatar Maxamed Xuseen oo kamid ah qoyska Muruud Sheekh waxay sheegeen in dhulkaasi laga been abuurtay sharcina u haystaan waxaana ay soo bandhigeen mulkiyada dhulkaasi waxaan halkan u nimidnay qalad hore oo dhacay inaan saxno qaladka hore ee dhacay way ka hadleen walaalahay oo way cadeeyeen wixii maxaan ku dhahdaa khalad ahaa way cadeeyeen waxaan ku qanacsanahay sida ay u cadeeyeen wadada laamiidii waxay soo dhaxmartay ilmo Muruud bay soo dhaxmartay mana aha made u dhaxeeya labada beerood waxa kale oo aan halkan ka cadaynaynaa in wadadii qadiimiga ahayd ee hay'ayaab ee la yaqaanay inay tahay taa aan taaganahay hadda mooskii u dhaxeeyay labada beerood ee reer Cashuur iyo reer Muruud u dhaxeeyayna inuu yahay ka naga haya qaybta koonfurta anagu ma gudbi karno oo xagga uma dhaafi karno oo koonfur uma dhaafi karno madahaasi ciida iyaguna ma soo dhaafi karaan oo uma soo dhaafi karaan waqooyi ma soo dhaafi karaan sida daraadeed halkan dhowr jeer oo hore waxa ka dhacay waxyaabo iska daba dhacay oo khaladaada tan tii koobaadna ma aha tii labaadna ma aha tii saddexaadna ma aha intaasoo khaladaba waxa gelinaya hal shakhsi baa gelinaya oo wax ku doonaya laamida wax ku doonaya laamidaasi waxa weeyaan waa laami ay dawladda hoose marisay dhulka yagii weey laakiin ma aha wax mada ah oo u dhaxeeya beero u dhaxeeya ma aha halkaasaan ka cadaynaynaa cid kastoo ay khusayso arintaasi waxaan u cadaynaynaa in madihii noo dhaxeeyay annaga iyo reer Cashuur inuu yahay wadada ciida ee hay'ayaabay weligeedna ay ka aroori jirtay boqolaal sanadoodna halka la mari jiray runtii waxa weeyaan Mataan oo dibadda ka yimiday oo aan aqoon badan u lahayn oo dhulka aanan faham badan ka haysanin ayaa halkan la keenay Mataan maanta waan ka bogsaday wixii uu ku hadlay iyo inanka abtiga iyo ninka abtiga maxaan ku dhahdaa kelmiyadii labadaba wixii halka ay kaga hadleen ee khalad ahaa gafkiisina wataasoo waa laga hadlay waxana weeyaan maanta anigana waxa aan ku fayownahay dhamaantayo
ciddii dhulka iib ku soo gashay iyo ciddii dhulka lahaydba waxay ku bogsadeen arrintaasi maanta way ka caafimaad qabaan. waxaanu joognaa goobtii maalintii dhoweyd sida qaldan wax looga gudbiyey oo ah dadku waxay isku qaldaan reer murud wada reer murud way farabadan yihiin maasha Allah ilaahay baa nabadiyey reer ballaaran baana intaayoo beeroodna kala le markaa waxa weeyaan beerta waxa iskale bah Faaduma iskale oo anugu nahay ani xabib murud Sheekh Gadiid Cabdallah baan dhashay markaa waxa weeyaan iyagana waxa Cabdi Murud baa dhalay markaa bah Faaduma 7 dumara iyo wiil Idris Murud Sheekh ayaa wax reer ku jiray sideedaas beertaas ay dhaxleen galbeedka beerta shishan reer Cabdi Murud baa iska leh wax dhaxalo reer Cabdi Murud ay ku leeyihiin beertan ama ay ka soo galaan ma jirto maalintii dhaweydna ninkan oo dibadda ka yimid mataan ayaa la qalday loo yeeray waxa weeyaan la joojiyay meel qaldan nin dhulka kala garanayna maaha waxa weeyaan adeerkay apologize bixiyay qaladkiina waxa weeyaan haday nootaayo tahay iyo haday tahay video la duubaba qaladkayga waxaas wadadaas waxa mariyay dawladii hoos maalintii wadada la mariyay anagu waan joojinay waxaan niri beeraha mada u dhaxeeya iyadana 7 mitir laga gooyo annagana 7 mitir sida lagu mariyo injineeradii iyo dawladii hoose ayaa yiri waxa weeyaan farsamo ahaan bay halka u maraysaa cadaymo fara badan bay sameeyay ay cadeeyeen ay leeyihiin madana waa made wadana waa wado wadadii beerta reer murud baan marinay wadadii hore madaha haydna ee waagi hore xooluhu ka soo fayeen markaan yararayn waa halkeegi ka bacdi wanaga imka joogna halkii madaha saxda ah waxa dhacday markii laamida la dhameeyay in dhulka iyaga la yiraahdaba 2019 ka madaha wax noo laamida cusub ka bacdi waxa dhacday dacwad baan isla galnay maxkamad baa isla galay maxkamadda sare hadda ku jirta anigu mar walba sharcigan ilaalinayna hal maalin oo qalad aan galnay oo u been abuuranay lama hayo xagga waxa been abuur ka dhacay tira male ragii xildhibaanada ee dhaweeyda la soo doortay wixii ay ka hadleen beertii laga hadlayay ee lagu xidhay ee apologize ay ku bixi sharci darada ay ka tabiyeen tan bay heed wixii ka dhacay duwal loo wada joogay waxa laga hadlayaa jingada halka taala waxa la dhisay intan dacwadu ay socoto ayaa la dhisay waan dacwoon waxa weeyaan waa la qaadi baa leeyahay ilaa aanka wali way taala marka maxkamadda sare insha Allah markay soo baxdo insha Allah waa la qaadi doonaa marka waxaanu cadaynaynaa inaanu nahay anagu dadkii beertan iska lahaa waxa weeyaan walaalihii maalintii hore helayna wax waanu magacii waan wada nahay laakiin wax waanu kala leenahay iyagu beerta shay leeyihiin anaguna tan baanu leenahay si qaldana waa loo galiyo waa kuwa waxa weeyaan apologize ka bixiyay sidana raali man ka nahay Cabdirasaaq Umar Macadowliyo magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal.